dhowaan ayay ahayd markii aanu booqanay deegaanka midhasho iyo xamaas oo magaalada Ceerigaabo qiyaas ahaan ku dhawaada 40 kiiloomitir dhanka waqooyi bari kaga aadan waxana intii aanu jidka u dhaxeeya deegaanadaas iyo magaalada Ceerigaabo ku sii jirnay nagu qaadatay aniga iyo asxaabtii ugu wehelinaysay muddo saacad iyo badh ku dhawaada inkastoo deegaanadaasi ahaayeen kuwa qurxoon oo cagaaran misana markii aanu gaadhnay deegaanka xamaas oo booqashadayadu ka bilaamaysay waxa ay indhahayagu qabteen deegaan aad u bilicsan goobo biyuhu durdurayaan iyo buuro dhaadheer kuwaas oo dalxiisayaasha si weyn u soo jiidanaya dadka ku dhaqan deegaanka xamaas ayaa u badan beeraley ka faa'iideysta biyaha durdurka Ilaahay ku manaystay Maxamuud Cabdullaahi oo kamid ah dadka beeraleyda ayaa iga warbixiyay qaabka ay uga faa'iideystaan biyaha Ilaahay ku manaystay biyahan waxay soconayeen muddo aad u dheer oo aan la garan karin waxa ku dhashay aniga aabahay waa ku dhashay hooyaday baa ku dhalatay saasay u soconayeen welina waa kuwa saa soconaya gu'iyo jiilaal ma kala go'aan meesha ay ka imanayaan dad waxaan taaganahay meelaha ay ka soo dhacayaan isha lafteeda ay ka soo baxayaan waa meel dhadhaaba mise waa meel noocee waa dhadhaab weeye biyaha dhadhankoodu waa noocee biyaha dhadhankoodu waa biyo aad fiican waxayna u baahan yihiin mooyasaxaasoo lama sheego kuwan waa biyo mooyasaxa qaar ka mid ah asxaabtii socdaalkayga igu wehelinaysay oo qaarkood deegaanka xamaas ka soo jeedaan ayaa dhankooda ka warbixiyay nimcada eebe ku manaystay deegaankaasi kuwaas oo hela biyo durdur ah meeshan oo la yiraahdo xamaas oo 35 kiiloomitir waqooyiga ka jirta Ceerigaabo oo dhul beereed ilaahay wuxuu ku nimcaystay biyahan durdurka ah ee qulqulaya farxad bay noo tahay inaan maanta booqano oo ku baashaalayna waxa weeyaan xamaas halkan aan ku sugannahay waa meel biyo si neer jaraali ah u soconay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku manaystay dhulkan barwaaqadiisa alxamdulillaah rabbil caalamiin dalxiis ayaanu maanta u nimaano halkan joognaa halkan aad arkaysid waa xamaas waa meel biyo waa buur biyo ka soo baxayaan oo nature ah oo dabiici ah waa meel aad u qurux badan joogeeda waa meel Ilaahay ku igmaday nimcooyinkiisa kuwa ugu qaalisan intaasi kadibna waxaanu goobta biyaha durdurka ay ka soo burqanayeen uga sii gudubnay dhanka beeraha deegaanka xamaas waxaanuna halkaasi kula kulanay qaar ka mid ah dadka beeraleyda oo iyagu sarcanaya ama se guranaya wixii ay beerteen dadkaas beeraha wuxuu wax yeelay wixii adigu ahayd amba baradho amba wixii la mid ahaa bari ahaa naga saar amba ciid buu naga saar ama qaar kamid waa la tigay balad adigu waxa iska ahayd ilaa 15 ilaa 5 kiiloomitir baa loo kala socon karaa xagga u iibgeysan waxaan u iibgeynaa magaalada Ceerigaabo markaan ugu fognahay gudoomiyaha deegaanka xamaas Cabdalle Maxamed oo aanu kula kulanay halkaasi ayaa waxaan dhankiisa ka wareystay taariikhda deegaanka xamaas iyo waxyaalaha deegaankaasi ku caanka yahay wuxuuna yiri bismillaah waxaan marka hore idin salaamayaa star telefishinka caalamiga waftigan ballaaran oo nagu yimi xamaas aad iyo aad baa u salaamantii waxaad nooga warbixiysaa Cabdalle bal taariikhda iyo waxyaalaha gaarka u ah deegaankan xamaas halka kanu waa meel deegaankeedu aad iyo aad u dheer yahay oo qiimo u leeyahay waana taariikh fog buu soo yiil oo la deganaan jiray ilaa nimankii hadba qolaa ka kici jirtay magaalay u ahayd faraacidii baa joogi jirtay niman haddii bayd maayo xabashidii baa degtay hadba qurun baa ka kacaysay ina Cabdulla Xasan baa yimi oo wuxuu ka yimi ilaa taleex meelshii ka soo guuray markuu xoolaha urursaday xagga banaanka iyo haddii bayd maayo jiidaha ka urursaday ayuu yiri meel aan dego istaraatiijiyaan rabaa markuu goorse midhishuu yimi midhish aad iyo aad buu ugu bogay wuxuu ka dhistay calqadooyin iyo dhul ciidamadu degaan wuxuu ka samaystay meel baarlamaankiisu dego oo degaan u ah oo baarlamaanku fadhiisto wuxuu samaystay meel uu wax ku ilaaladiisu tagto wax ku ilaalayo markii labaadna markuu biyihii arkay qulqulayay ee togaga biyaha ka qulqulaya oo arkay 24 saacadood aan joogsanayn wuxuu yiri dala kale uma baahnin waxaynu cuntadeena halkaynu kala soo baxaynaa beeruhu ka samaystay
beerihii wuxuu ku riday masago iyo hadhuudh ciidamadiisu wax kale ma cuni jireen inta halka joogta waxay cuni jirtay raashinka ku riday midhisho iyo beerareeda toga kan waa togis haysta ilaa midhishi iyo xamaas meesha u joogay oo muddo u fadhiyay oo togagan u haystay ayuu waxa yimi ninkii la oran jiray diyaarad baa ku garaacday waxay dishay caamir iyo xaaskii bisibay dishay diyaaradii markuu ku garaacay oo la dhacday rasaastii bamkii lagu dhuftay lagu geeyooday wuxuu yiri nin waaxid oo yiraahdaa diyaarad yiraahdaa ciidankaygu hadduu soo maqashaan waa dilaya coomaadadhaha deegaanka xamaas waxaan uga sii kicintinay dhinaca deegaanka midhasho oo ay ood wadaag yihiin inkastoo ay labada deegaan ku kala duwan yihiin dhinaca wax soo saarka beeraha marka laga reebo dhinaca qudaarta misana deegaanka midhasho waxa ku badan dhirweynta ay ka midka yihiin saytuunka liinta waxaana labadaasi deegaan iskaga mid yihiin durdurka biyaha aan kala go'a lahayn dhinaca buuraha iyo dooxooyinka dhulka ay wax ka beertaan yaasiin cali axmed waa mid ka mid ah beeralayda deegaanka midhasho waxaana uu iga warbixiyey taariikhda deegaankaasi iyo dhinacyada wax soo saarka beeralayda midhasho iyo weliba sidoo kale meelaha ay u iibgeeyaan marka ay soo go'do beerahaasi togan midhasho markaan ka warramo taariikhdiisa hore ee nololeed waxa weeye tog soo jireenna oo hal qarni in ku dhow ay dadku ku noolaayeen laga soo bilaabo markii uu deganaa haleegii geesiga ahay sayid maxamed cabdulle xasan intii ka dambeysay ilaa 12kii waqtigaas ayay ahayd markii hore isaga ayaa meeshan deganaan jiray oo qalcad ay uga dhisnaayeen qalciisna waad arki kartaan oo waxa weeye taariikh lama ilaawaana kuwa salka uga dhisnaa iyo kuwa buura uga dhisnaa wuxuu ahaa nin fikir badan togna waa tog biya oo durdura markiisa hore aan biyihiisu goyn saacad walba 24 saacadoodba waqtiyada roobka laakiin xogaa waxa yeelaya dadka soo gaadho oo biyaha ayaa ku badan oo waa tog cidhiidha marka aan dib u noqdo taariikhdiisa waqtiyadaas ayaa beeraha la aasaasay oo odayaashii 3 awoowe ay hadda marayaan awoowayaashii hore ayaa aasaasay dhulkayma ay ahaayeen waxaa ku noolaan jiray xoolaha nool sida looda adhiga iyo geela kabacdina fikir ayaa la sameeyay waxa la arkay biyahan togan dhex maraya inay yihiin biyo hodana oo laga faa'iideysan karo sidaas ayaa loo aasaasay waayeelkii hore hadhuudh iyo galley ayay beeri jireen waxa laga keenay meesha laada adari dibida wax lagu qodo iyo saabaankeeda doon baa la soo saaray meed baa laga soo dejay kabacdina waa la soo lugeysiyay halkan ayaa la keenay ilbaxnimada halkaas ka soo aasaasantay hadhuudhku waxa markii hore wax yar kabacdina beeri baa la kala qaatay maalinba beer baa la beeray waqtigaas oo maxmiyadii ingiriisku ay haysatay inta badan beeruhu ingiriisku wuxuu ku lahaa halkan beer iyo qalcad oo ka xukuma dalka kabacdi beera inta badan 15 casho biyo isaga lahaa 15 cashana beera inta kale ayaa lahayd si kastaba aatee deegaanka midhasho iyo xamaas waa deegaano bilicsan isla markaasina marka aad tagto deegaanadaasi ku soo jiidanaya waxaana loo odhan karaa waa deegaano ku habboon dhinaca dalxiiska cabdiraxmaan axmed ilsar star TV magaalada Ceergaabo.